daawadayaal soo dhawaada mar kale dhaqan ahaan Soomaalida waxay aad u jeceshahay cabida caanaha geela iyo waliba cunida hilibka geela oo asal ahaan saddexda caanaha macaan midka loogu jecel yahay hilibkiisa iyo waliba caanahiisa haddaba magaalada Kismaayo oo kamid ah maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa laga hirgeliyay ganacsi sanadihii ugu dambeeyay halkaasi si kobcayo ka shaqeynayay kuwaasi oo gunta dhisha iskaga dhigeen ganacsatada Soomaaliyeed oo arkay in ay muhiim u tahay in geel intii la adoodo ama laga keeno baadiyay kore 10 kiilo ilaa 15 kiilo meel u jirta Kismaayo la geeyo aroortii hore ee subaxii caana fresh tigeel laga soo lisaqay jalayaal lagu shubo loo iib geeno magaalada isla markaasina casradii ee sidoo kale loo iib keeno magaalada haddaba barnaamijkaasi ayaan ugu kurgaleynaa waxa inooga warbixin doona mid kamid ah ganacsatada u iib geysa caanaha magaalada Kismaayo iyo waliba shakhsi kale oo asaga kuwa geela dhaqa ee duleedka magaalada Kismaayo ku sugan dadka waxaan ahay caanaha ka ganacsado emailka la yiraahdo oo min marketing baan ahay oo dadka caanaha suuq geeyaan ahay baadiyaha aragteen oo maanta aad joogtaan wiilka Ciise Maxamuud Cali la yiraahdo Ciise Goobe iyo rag la mid ah iyo geel anaga aan leenahay oo dhan baan caana ka qaadaa suuq waan suuq geeyaa galab iyo subax waan qaadaa caanaha geela faa'iido badan bay leeyihiin odayaal badan oo caana aan u geeyaa jirto dad gabdha ilma yar yar oo caana aan u geeyaa jirto caanaha marka loo bilaabo calcium bay caanaha leeyihiin baa la yiri caanaha lafahay dhisaan caanaha geela waxaan u maleynayaa geedka oo daaqo 100 geed buu daaqaa geela 100 kaas geedna 20 iyo 30 iyo 40 dabcan way ku jirtaa daawo ah marka waxa weeye geelaas caanihiisa waan qaadnaa magaaladan geennaa faa'iidadiisana alxamdulillah waa ku ladana waa ku dhaqanahay oo waxa weeye baadiyahana waan degannahay magaaladana waan degannahay caanahana magaaladana laga gataa dadka way soo baxaan oo baadiyaha yimaadaan alxamdulillah waa ku dhaqanahay qiimaha caanahana waxa weeye qofna waad siinaysaa bilbaad ku siinaysaa lacagta qof baa laga yaabaa inaad 10 bir u wado ama bil markaad u wado oo kugu jaro aad weydo oo ku yiraahdo meel heblaayaan joogaayo neew caanihii waan ilaaway waan way iska jirtaa dadku ugu jaray caanaha aniga caanaha waxaan qaadnaa ilaa iyo 30 ilaa iyo 60 litir ilaa iyo 100 litir labada waqti waan qaadnaa halka baa deganahay xoolaha baa ku xanaanaynaa geela subax iyo galab xilli kasta waa lisnaa saa oga helno nafaca caanaha dabadeedna u geeyno magaalada annagana aan ku dhaqannahay daawo u raadsanin magaalada faa'iido badan buu leeyahay dhirta iyo dooga iyo waxa dhan buu daaqaa geedaha kala duwan carafkiisa daawo ee caanihiisa daawo hilibkiisa daawo intaa baa isticmaalnaa wax daawo ee magaalada uma raadsano daawada caanahana halkaas aan nooga iibiyaa ninkaasayda suuq geeyo deegaanka daaqa way fiican yihiin halka dhul deex baa naga jiro dhulka uu si fiican inta dhul maxaa naga jiro oo caraad inta maxaa naga jiro dhul caraad inta dhul carguduud dhulka kulliga deegaankiisa waa fiican dhirtaasayda kali lagu jaraa laga helay kuwa geela dhaqa ee duleedka magaalada Kismaayo ku sugan waxa daawanaysa Maadays TV iyo barnaamijkii la xiriiray saddexda caanaha macaan mid kamid ah oo magaalada Kismaayo si aad caanaysa looga isticmaalo tan intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga sidaas iyo cawaysin wanaagsan